iyadoo ay dhawaanahanba soo gaadhiyeen degmada Taleex wafuud kala gedisan ayaa waxaa maanta soo gaadhay degmada Taleex wafuud ka socota degmada Boocame kuwaas oo qayb ka ah ergooyinka deegaanka Boocame uga qayb galaya shirweynaha Khaatuma laba ee ka furmi doona maalmaha soo socda deegaanka Taleex dadweynaha ku dhaqan degmada Taleex ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay ergooyinkan ka soo kiciitamay deegaanka Boocame iyagoo kaga hortagay meel ka baxsan magaalada Taleex soo dhaweyn kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ergooyinka ka socda deegaanka Boocame iyagoo uga mahadceliyay sida diiran ay u soo dhaweeyeen dadka reer Taleex ilama ingiriiska iyo dawladaha ajnabi dhalintii soo asaastay ay goobta idil yihiin kana ilmayna iyo reerkeena kala anbaday amarkay fuliyaan ninkii dida waynka aad baad u mahadsantihiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa madasha shirweynaha Khaatuma 2 ku soo dhawaada waxaanu idinka mahadcelinaynaa tamaashaadkii iyo hidiya dhaqankii iyo heesihii iyo cayaarihii quruxda badnaa ee dhaqanka deegaanada SSC ku salaysnaa ee aad halkan ku daafurteen soo gelidiina madasha waanu idinka mahadcelinaynaa idinkana walaalayaal sida quruxda iyo qaayaha leh dadweynaha reer Taleex soo dhaweeyeen annana waxaan wadanay dhalinyaro iyo dad dhalinyaro iyo haween iyo ergadaas waxay ka koobnayd haween dhalinyaro odayaal uqaal iyo ergooyinkii shirka loogu talagalay halkana sidaad u jeedeen dhalinyarada reer Boocame waxay ka muujiyeen ciyaar Soomaali aad iyo aad u qurux badan aad baan iyagana ugu hambalyeynaya oo ku faraxsanahay labaad waxaan jeclahay inuu mahad celiyo dadweynaha degmada Taleex sida fiican ay noo soo dhaweeyeen aad baan idin mahadsantihiin waa Cadnaan Saalax Maxamed Soomaali Saad degmada Taleex ee gobolka Sool